Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan rabaa marka cashar yar oo kooban ku saabsan shiftiga marka la isku wareejinayo nursingka guud ahaan qayb walba uu joogo. Waxaa jirto in bukaan la isku wareejiyo waa muhiim. Tusaale ahaan oo kale markii shiftiga aad dhamaystid oo shiftiga qof kale aad ku wareejinayso oo bukaanada oo in la isku wareejiyo muhiim waaye. Sidoo kale idinkoo hal shift ku wada jiro ama hal shaqo ku wada jiro in laga yaabo qofku in uu ama qado uu u baahdo ama inuu jiif wax lamid kale u baahdo. In shiftigaas oo kale iyo report ahaan waxyaaba la isku wareejinayo oo muhiimka ah taas oo kale oo laga hadli karaa macnaha ku saabsan yahay spar shift reports wuxuu ka kooban yahay spar maxaa waaye waxaa lasoo gaabiye situation waa esta b da waa background edna waa assessment rna waa recommendation macnaha situation s waxaa waaye situationka bukaanka xaaladiisa iyo jawigiisa iyo meeshuu ka imaaday iyo bukaanka magaciisa oo kale iyo meesha qolka uu jiifay da'diisa iyo labi dhidib wuxuu yahay iyo daryeelka uu u baahan yahay dhakhtarka uu jiifo meesha laga soo sixiyey waa taas waa situationkii. Sidoo kale waxaa muhiim in la isku wareejiyo backgroundii bukaanka tusaale ahaan kale camal qofkan waa loo soo admission galiyey diagnoska uu meesha u jiifo waa maxaa waaye haddii qalliin lasoo suubina taariikhda qalliin loo soo sameeyey haddii kasoo qaad cudurro oo chronic oo hore u qaba haddii jiraan sida dhiig karoo kale iyo wadnaha inuu qofka jiran yahay inuu RF yahay inuu diabetic yahay taasna in warbixin iska siiyo muhiim waaye. Sidoo kale qiimeynta aa samaysa adiga ama qiimeynta bukaanka loo sameeyey maxaa kasoo baxay tusaale ahaan qiimeyntiisa xaaladiisa bukaanka bukaan oo rajada leh miyaa bukaan oo aan wax laga qaban karin miyaa bukaan oo jawigiisa waaye. Sidoo kale vital signs abnormal haddii uu jiro tusaale oxygenkiisa bukaanka dhacayo ama bukaankan pressurekiisa dhacayo stable maahan taasoo kale muhiim ah in la isku wareejiyo. Sidoo kale IV lineka ama IV siteka kaanunka ku jiro hadduu bedel u baahan yahay haddii uu shaqeynayo haduusan shaqeynayn sidoo kale faleebooyinka uu qaadanayo iyo faleebooyinka ku socdo kaanunka meeshuu ku xiran yahay faleebada meeqa ml qofka uu qaadanayaa haddii oo saacad lagu xiraayo haddii IV la bedelayo goormee la bedelaa taasna waa in la isku wareejiyo muhiim waaye. Sidoo kale procedurada loo suubiyey 24 saac u dambeeyey qofkan maxaa loo sameeyey CT yaa lasoo saaray shalay ama xalay qofkan debridement yaa loo suubiyey qofkan waxaa loo suubiyey procedure noocaas oo kale scan aa lasoo saaray waxyaabahaas oo kale camal la isku wareejiyo waaye. Sidoo kale abnormal assessment markii la qiimeeyo waxyaaba abnormal haddii ay soo baxdo qofkan kasoo qaado kale qiimeynta kadib waxa soo baxay waa paralysis lugii gacan dhacsan qofkan kasoo qaado qofkan indhaha wax maka arkooyo waa assessmentigii abnormal haddii waxyaaba abnormal haddii ay jiraan qofka in la isku wareejiyo. Tusaale ahaan oo kale camal xanuunkiisa hadda see waa marka xanuunka hadda qofka haayo xanuun hadda ma haya mise ma haayo haddii xanuunkan oo la manage gareynayo see loo xalinaya xanuunka marka taasna in la isku wareejiyo muhiim waaye. Sidoo kale qofkan safety ahaan wuxuu u baahan yahay qofkan gacmaha in laga xiro ma u baahan yahay qofkan bedsore muu khatar ugu jiriyaa situationkii ama khatarta uu kusoo qofkan oo bukaankan khatarta uu macnaha uu geli kara maxaa ka mid ah. Sidoo kale recommendation waxyaabaha qofka shiftiga wareejinaya uu soo jeedinaya tusaale ahaan oo kale camal qofkan daawooyinkiisa ama dietka ama waxyaabaha oo kale camal activity qofkan u baahnaa haddii in wax laga bedel ay u baahanto kale camal waxyaabahaas oo kale camal kasoo qaado kale daawadan ama qofkan wuxuu qaadanaya cuntuu qaadanaya cuntadii wuxuu ku noqday saasuu ku noqday marka in laga bedelayo in kale taasna waxaa waaye in la fiiriyo waaye qofka shiftiga ku wareejina. Sidoo kale waxyaabaha qofka uu walwalka uu ka qabo waxaa ka baqaa qofkan inuu waxyaabahaas ay ku dhacaan oo kale qofkan inuu tubbada iska baxsho qofkan inuu IV iska baxsho waxyaabaha adiga concernka ugu weyn kugu haayo inaad qofka ku wareejisa laga rabaa. Sidoo kale discharge planning qofkan haddii bukaankan haddii loo qorsheynayo in la baxsho waa bukaankan in beri in la baxsho ama maanta in la discharge la dhaho la qorsheeyey markaas la soco. Sidoo kale shaybaara haddii ay jiraan ama raajooyin ama CT oo kale oo qofkan u dalban ama loo sameeyey laakiin weli jawaabta aan la helin kasoo qaad bukaankan HB yaa ka qaaday CBC yaa ka qaaday jawaabtiisa weli ma soo bixin ama biochemistry yaa ka qaaday jawaabtiisa weli ma soo bixin marka taasna waa la isku wareejiyo. Kasoo qaad dhakhtarka qofka uu wacay dhakhtarka shiftiga ku jiro oo qofkan uu wacay dhakhtar hebel shiftiga ku jiro waxyaabahaas haddii u baahan tahay doctorkaas ha wacay camal qofka inuu u wareejiyo. Sidoo kale shiftiga hadda waxyaabaha uu qofka inuu ka taxadiro oo u baahan tahay ku wareejina marka bukaankan BPgiisa iska ilaali bukaankan oxygenkiisa iska ilaali bukaankan macnaha iyo waxaas macnaha yuusan sameynin camal bukaankan pressurekiisa dhacayo waxyaabahaas camal iska ilaali qofka inaad dhahdid. Shift report lagu macnaha isbaarka loo yaqaano waa kaas waaye marka qofka nursingka laga rabo mar walba inuu wareejiyo.